warmurtiyeedka kulanku wuxuu yahay guddiga hagidda diiwaangelinta madaniga ah iyo statistiskada muhiimka ah markii uu dhageystay warbixinta xaaladda guud ee nidaamka diiwaangelinta madaniga iyo statistiskada muhiimka ah qorshayaasha iyo howlaha socda markii uu arkay muhiimadda uu leeyahay qaranka hirgelinta nidaam diiwaangelin casri ah oo isku xiran dalka oo dhan markii uu qiimeeyay fursadaha jira iyo soo jeedimihii koox howleedka diiwaangelinta madaniga waxa uu bogaadinayaa guddiga farsamada ee fulinta siyaasadka qaran dadaalkii ay muddada sanadka ah ku bixiyeen howlaha kor ku xusan isla qaatay sida ugu dhaqsaha badan in lagu dhammaystiro hindisa sharciyeedka iyo habraacyada kale ee nidaamka u mahadceliyeen daneeyaasha ka qayb qaatay hawsha socota ee kala ah UNICEF, UNECA, UNHCR iyo UNDP xoojiyeen baaqa kooxda diiwaangelinta madaniga ee ballaarinta guddiyada meel mariyay qorshaha guud ee sanadka soo socda ee diiwaangelinta madaniga ka codsadeen in daneeyaasha kala duwan ay taageeraan qarashaadka fulinta qorshayaasha diiwaangelinta madaniga ee 2023 dowladda Soomaaliyana ay qayb ka qaadato iyaduna fareen adkeynta iyo joogteynta xiriirka iyo hay'adaha intaasuu ku dhammaaday dhammaantiin mar kale waxaan ka mahadcelinaynaa kulankan productive-ka oo miro dhalka ah oo maanta noo qabsoomay aan rajaynayna sanadkiisana inay ka duwanaan doonto warbixinada la soo gudbinayo tii maantay oo wax practical ah oo la qabtay iyo diiwaangelinno la sameeyay degmooyinka 30 oo calaameynay iyo wixii gaabis ah oo ka yimaada halkaas inaan isugu imaan doono haddii la yiraahdo inta ka sokeysana guddiyada farsamadu ay shaqaday qaybtii ay ku lahaayeen ay qaadan doonaan aad iyo aad baan mahadsantihiin kulankeena maanta waa noo xiran